Gabadha weyn indhaheegu way dhalaalayeen, waxayna arkaysay dhammaan cuntada miiska taalla. Waxay bilowday inay dhereeriso oo ay dhareerka iskaga masaxdo gacmaheygii wasakhaysnaa. Eeg, waad gaajaysan tahay. Haa, waan gaajaysanahay. Waa inaad i quudisaa. Sidaad rabtid xaaskaygiyay. Wixii dhacay wakhtigii xigay, uma malaynayo inuu qof isku diyaarin lahaa taa. Ninkii xoog ayuu u nuugay strawberry-gii, kadib waxa uu u dhowaaday xaaskiisii, kadibna waxa ay si weyn u furtay afkeedii, wuxuuna ku shubay sharaabkii afkeedii. Wendy shaqaalihiisu waxa uu fadhiyay gadaashayda. Aad ayay u macaanayd, xitaa way ka macaanayd markaan ku cunaya afkayga. Ninkii aad ayuu u dhoola caddeeyey, sidii inuu ku faanayo naftiisa. Kadibna aad ayuu u goostay hamburgerkii, wuxuuna bilaabay inuu xoog u calaliyo. Waa ay dhereerisay mar kale iyadoo daawanaysa isagoo cunaya. Kuma ayna goosan afkeeda hal mar. Waxaanay u malaynaysay afkeeda, ma ay awoodeyn inay ku cunto afkeeda. Calalintii labaad, mar labaad ayuu u dhowaaday xaaskiisa. Markan waxa uu ninku sameeyey waa ay ka duwaneed sidii hore, wuxuuna ku wareejiyey waxyaabo isku jirjira cunto la calaliyey iyo candhuuf afkeedii. Gabadhuna ma sugi karayn inay cunto. Indhaha isku xidhay wayna ku raaxaysanaysay iyadoo cunaysay cuntadii afka ninkeeda ka soo baxday. Aad bay u macaanayd. Waqtiyadii xigay waxa ay sii wadeen inay sidaa u sii cunaan. Ninka u calalinayay cuntada iyada, kadibna waxa uu u gudbinayay afkeeda. Dhab ahaantii ma cunin cuntadaydii kadib markaan arkay dhaqankan. Si degdeg ah, gabadhii weyneed ayaa igu soo eegtay indho cadho ka muuqato. Waxay tidhi, maxaad naga soo eegaysaa? Miyaanad haysan cuntadii aad ku cunaysay xanaaqa? Waxa aan cod hoose ku idhi, miyaaba qof wax ku hor cuni karaa dad sidan oo kale ah? Maxaad nagu tilmaamtay? Ninkii weynaa ayaa ka istaagay kursigiisii, wuuna igu qayliyey. Waqtigaa wixii ka dambeeyey, dulqaadkii ayaa iga dhammaaday. Waan istaagay si aan u socdo, anigoo dhahaya. Waxaan idhi, waxaad maqlaysay. Dib ayaan u jeestay si aan u baxo markii ninkii weynaa uu qabtay shaarka xagga dambe, uuna i soo dhowaystay. Kama aan filayn inuu i saarayo gacantiisa, laakiin waxay u dhacday si degdeg ah. Waxaan iloobay inaan ka falceliyo. Waxaan ula taagnaa weji ka weji markii uu candhuufta wejigaygaga tufay. Maxaa kaa khaldan? Ku raaxayso macaankeyga. Wejigaan iska masaxay kadib ishaan ka feedhay si aan nafteyda uga badbaadiyo. Feedhkii xoogga badnaa kadib waxa uu ku dhacay dhulka. Yaa ilaahi, Jack ma fiican tahay? Maxaad sidan ugu samaysay? Sababtoo ah candhuuf ayuu wejigaygaga tufay. Gabadhii ay xanuunsanaysa. Wendy shaqaalihiisii ayaa u soo orday xaggii lamaanaha. Aniguna waan iska tegay anigoo ku odhan waxba. Waxaan maqlay gabadhii weyneyd oo ka abaartamaysa gadaashayda. Waxaad ku guban doontaa dab, waxaad ku dhiman doontaa dhimasho naxdin leh. Dib ayaan u soo jeestay markii ugu dambeysay. Waxaan idhi, markuu Jack dhinto sida la hubo, waxaan ka walwalayaa qofka ku quudin doona Rosie. Wejigeygii uu isbedelay iyadoo maqlaysa kelmadahaygii. Waan iska soo socday. Waxay ahayd waqtigii ugu dambeysay aan tago Wendy makhaayadiisa. Si dirqi ah ayaan habeenkii u baxaa kadib khibrad badan oo naxdin leh. Kadib Jack iyo Rose cabsidii aan kala kulmay. Wax kastoo tahay fadlan, isticmaal dadka guryaha alaabta u soo qaada. Waa sida uu yidhi. Waxaan rajaynayaa inaad sheekada ka wada hesheen. Halkan ayay sheekadeennii ku eg tahay.